waxaan haynaa oo cadeymaheeda la hayaa oo qaarkood hay-adaha sharcigu ay daba socdaan iyo hay-adaha ammaanku dad al-shabaab ay lacag ku siiyeen inay qabaa'il isku dhuftaan oo qaarkood shaqadaas fuliyey. kulan wanaagsan daawadayaal, halkani waa janalka Isha Wararka. waa maalin Arbacada, taariikhdu waxay ku beegan tahay 14 bisha September sanadka 2022. qodobada wararkeena maanta ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo lagu xiray magaalada Muqdisho kadib markii la ogaaday inay la shaqeeyeen ururka al-shabaab. warar ayaan idinkaga haynaa dowladda oo faahfaahin ka bixisay raggaasi la qabtay waxyaabaha uu qabanayeen ururka al-shabaab. qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan oo intiisa badan soo galay gacanta dowladda iyo ciidamada macawisley kadib markii looga awdronaaday ururka al-shabaab. galgaduud meelo badan oo kamid ah ayaa ciidanka dowladda iyo kooxda macawisley gaar ahaan beesha Saleebaan waxa ay qabsadeen deegaano waaweyn oo isku xira gobolada Mudug iyo Galgaduud oo markii hore ay iyaguna al-shabaab joogeen. faahfaahin ayaan idinkaga haynaa wararkii ugu dambeeyay duqeymo ku soconaya gobolka Tigray ee maamulka TPLF oo dhowr jiho weerar looga soo qaaday. faahfaahinta qodobadaasi inta ka horeysa waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo channelkan subscribe saartaan. haddii aad hore noola joogtana fadlan sii share gareeya oo warbixinadeena like dhaha si aan u helno saaxiibo idinkoo kale ah, annaguna aan diyaar u lahaano wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. mahadsanid. markaan aan guda galno faahfaahinta. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa si faahfaahsan uga hadlay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo kacdoonka shacab ee ka bilowday gobolada Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug. Al-Cadaala ayaa shacab ka qaadeen haatan kooxda ay wajahayso cadaadis xooggan oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka uga imaanaya, balse waxa uu tilmaamay in hadda ay bilowday xeelad cusub ay isaga jeedinayso weerarka ku socda. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay bilowday isku dirka beelaha isla markaana ay jiraan dad lacaga ay al-shabaab ku siiso kuwaas oo nuucyo kala duwan isugu jira, isaga oo sheegay inay ka shaqeynayaan dadkaasi iska horkeenka qeybaha kala duwan ee beelaha. sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray in ay ku raajoogaan dadkaasi isla markaana ay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. waxa kale oo xusay in hay'adaha amniga ay la socdaan arrintan isla markaana ay wadaan dabagal iyo baaris si looga hortago qorshaha kooxda al-shabaab. waxaan haynaa oo cadeymahooda la hayaa oo qaarkood hay'adaha sharciga iyo kuwa amnigaba ay daba socdaan dad al-shabaab ay lacag ku siiyeen in ay qabaa'ilo isku dhuftaan oo qaarkood shaqadaasi fuliyay. goobaha inta badan hadda qabaa'ilada la isku dhuftana waa goobaha culayska ka jiro oo al-shabaab qabaa'ilka Soomaaliyeed kula dagaalamayaan ama ay iska abaabulayaan, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli dhaqdhaqaaqiyo iyo howlgallo ay wadaan ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kooxda la yiraahdo macawisley. dhinaca kale wasiir Al-Cadaala ayaa duray hadalkii dhawaan ka soo baxay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xusul, isaga oo eedan u jeediyay ama dhaliilay dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan kooxda macawisley. waxa uu Al-Cadaala sheegay inay jiraan dad mas'uuliyiin ah oo u adeegaya al-shabaab, waxaana uu tilmaamay in dadkaasi ay ka xishoodaan dadka iyo mas'uuliyadda ay hayaan, haddii kale tallaabo sharci ah laga qaadi doono. Al-Cadaala ayaa sheegay in kacdoonka bilowday aanan loogu dulqaadan doonin dadka madaxda ah ee isku dayaya in iyaga oo la isticmaalayo ay al-shabaab u adeegayo in ay dhabarka ka jibiyaan dhaqdhaqaaqyada iyo kacdoonka ka socda meelo badan oo kamid ah Soomaaliya. dhinaca kale dhul fara badan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ururka macawisley waxa ay kala wareegeen kooxda al-shabaab, iyadoo ciidamada dowladda iyo kooxda macawisley gaar ahaan kuwa Galgaduud iyo Hiiraan ay ku sii shaqeeyaan guud ahaan inay gacanta ku dhigaan gobolka Galgaduud, gaar ahaan qeybaha beelaha dagaalamaya ay degaan. beelaha Xawaadle iyo Saleebaan ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee hadda dagaalkaasi iskooda ama qabiil ah ugu jira, waxaana ay garab ka helayaan ciidamada iyo saraakiisha ka soo jeeda beeshaasi ku jira dowladda Soomaaliya. al-shabaab ayaa furmo badan waxa uu hadda uga furan yahay Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyadoo dhaqdhaqaaqa madneen uu ka jiro gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Mudug. inkastoo beesha degta koonfurta Gaalkacyo ee Sacad ayaguna wadaan dhaqdhaqaaqyo ay doonayaan inay dib uga qabsadaan al-shabaab,
meelaha tuulooyinka hoostaga Hobyo Xaradheere iyo sidoo kale inta u dhaxaysa Gelinsoor iyo magaalada Hobyo. Howlgallada ayaa u muuqda kuwo isku xirnaan doona haddii dhinac kasta uu ka soo wado, iyadoo oo dhinacyadu howlgallada ay markii dambe isku imaan doonaan, taasoo ka dhigan in la isku furo dhul fara badan oo muddo ay go'doomiyeen ururka Al-Shabaab. ugu dambeyntiina gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya ayaa lagu garaacay duqeyme cirka ah Talaadadii sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka 2 maalmood kadib markii ciidanka maamulka TPLF ee halkaasi ku sugan ay sheegeen inay diyaar u yihiin xabad joojin. duqeynta ayaa la sheegay in ay ka dhacday xarunta gobolka Tigray ee Makela, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 1 qof sida uu sheegay Kibrom Gabrielsis oo ah sargaal sare oo ka tirsan isbitaalka Aydar Ravel Hospital oo ah kan ugu weyn ee Tigreega dhaawacyadooda lagu daweeyo. Albukaan oo dhaawac ah ayaa soo gaaray Aydar. wadarta khasaaraha ilaa hadda lama oga, ayuu ku yiri qoraal uu ku soo qoray barta Twitter-ka. jabhadda Tigreega ee TPLF oo dagaal kula jirta ciidamada Itoobiya xulufadeeda muddo ku dhow 2 sano, waxa ay sheegtay in diyaarad aan duuliye lahayn ay duqeysay jaamacad ku taala Makela subaxnimadii Arbacada ee maanta oo ay geysatay khasaare naf iyo maal leh. tani waxay dhacaysaa kadib markii xukuumadda Tigray ay dhistay koox wada xaajood ah, waxayna muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal, ayuu yiri afayeen u hadlay TPLF. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warkeennii barqanimo. daawadayaal haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtana like garay warbixinteena oo sii share garay si aan u helno saaxiibo adigoo kala ah. mahadsanidin.